السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي soo dhawaada waa walaalkiin abshir oo idiin wada muuqaal kale maanta waxaan ka hadlaynaa creatine waa ogsoontihiin creatine qof kasta creatine ayuu sheegaa mar walba uu gym bilaabo haddaba creatine muxuu yahay muxuu taraa waxyaabahaas dhan ayaan ka hadli doonaa waayo dhalinyarta waxay u bateen qofkii laba mar gymka aadaba inuu dhaho creatine ma isticmaali karaa creatine goormee cabi karaa creatine waa badatay creatine marka maanta waxaan ka hadlaynaa creatine muxuu qabtaa marka hore creatine maxaa la dhahaa creatine waa compound oo laga helo jirka bini'aadamka uu soo saaro jirkeena wuxuu soo saaraa 1 ilaa 2 gram oo creatine ayuu natural u soo saaraa creatine sidoo kale waxaa laga helaa cuntada sida badan waxaa laga helaa hilibka gaduudan waa laga helaa sidiisaba ha ahaado kan lo'da kan kale waxa dhan ha ahaado hilibka gaduudan waa laga helaa creatine waxaa kaloo laga helaa kalluunka sidoo kale asagana creatine waa laga helaa sidoo kale creatine-ka asagana waxa waaye supplement ahaana waa loo qaataa oo asaga laftirkiisa markii horeba meat-ka laga soo maaragtay extraction looga sameeyay oo laga soo sameeyay creatine-ka muxuu qabtaa qof creatine hadduu isticmaalo muxuu ka caawinaya creatine waxyaabo badan oo qofka ka caawinaya wuxuu ka caawinaya maaragtay in uu energy siiyo wuxuu ka caawinaya performance-giisa inuu sare u qaado maaragtay strength-ga qofka inuu sare u qaado creatine-ka wuxuu sameeyaa jirka ayuu macnaha murqaha dhexdooda ayuu biyo gelinayaa wuxuu kordhinayaa wax loo yaqaano AT waxaa jiro markii aad gymka tagtid oo bir qaadaysid nooc walba exercise aad sameynaysid markii uu muruqaagu saan dhaho oo any contraction oo muruqaagu sameeyo ama bicep sameeyo ama tricep sameeyo any contraction oo muruqaagu sameeyo hadda just sameynaysid shoulder wax walba aad sameynaysid jirkaaga wuxuu isticmaalaa energy loo yaqaano ATP adenosine triphosphate laga soo gaabiyay ATP gaas ayaa wuxuu ka caawinayaa marka inaa maaragtay energy badan yeelatid oo rep kala sameeysid mar walba dhahdid oo maaragtay sariixdidba yacni waxaa isticmaalaysaa ATP energy gaas loo yaqaano creatine-ka marka meeshaan ayuu shaqadiisa soo galaysaa creatine-ka wuxuu ka caawinayaa markii aad supplement ahaan u qaadato jirkaaga uu creatine badan ku jiro waxaa kaa caawinaysaa jirkaaga inuu maaragtay more ATP u yeesho more ATP in yani oo jirkaaga soo generate garayo macnaheedu maxaa markaas inaad sii wadi kartid birta sii sameyn kartid oo energy kaa dhamaaneyn marka creatine-ka shaqadaas uu qabanaya which means energy badan oo ATP loo yaqaano jirkaaga ayuu ku kordhinayaa taasoo keeni doonta marka inaa maaragtay culays badan qaadi kartid inaa intaa sameynaysay inka badan sameyn kartid in maaragtay oo shaqo adag aad qaban kartid oo aadan daaleynin marka shaqooyinkaas dhan ayuu qabanaya sidoo kale waxyaabo uu sameeya waxaa ka mid a wuxuu kordhiyaa water retentionka waxa loo yaqaano in murqahaaga ay biyo badan galaan sida ogsoontihiin 70% of the body waxaa waaye waa biyo muruqa aad arkaysid biyo ka samaysan yahay jirkaaga inta badan waa biyo so asagan marka creatine-ka wuxuu sameynaya wuxuu kordhinaya water retentionka biyo badan ayaa muruqaaga galaa which means murqahaaga full ay noqonayaan so you will look bigger yani murqahaaga inay waaweynaanayaan oo kale ayay u ekaanaysaa marka creatine-ka waxyaabahaas dhan uu qabtaa shaqooyin aad u fiican oo qabtaa sidee loo isticmaalaa haddaba creatine-ka waxaa waaye noocyo badan ayaa loo isticmaalaa waxaa jiro loading phase wax la dhaho loading phase marka waxaa waaye qofka marka inuu maaragtay creatine levelskiisa jirkiisa markuu rabo qofka inuu dhaqsi kordhiyo wuxuu sameynayaa 1 isbuuc ayuu wuxuu qaadanayaa 20 gram oo creatine maalin walba halkaas isbuuc jirkaaga marka creatine levelskiisa way buuxsamayaan so full aan noqonaysaa weight-kaaga kor u kacayaa 2 ilaa 3 kiilo camal aad kugu darsamayso murqahaaga full ay noqonayaan so loading phase aa la dhahaa kadib markii loading phase-kaas qofkaas uu maaragtay halkaas isbuuc 20 gram oo isbuuc qaato oo jirkiisa uu buuxsamo ka dambo wuxuu qaadan doonaa 3 ilaa 5 gram ayuu si daily u qaadanayaa si levelkaas buuxo jirkiisa uu gaaray uu maintain gareeyo yani creatine levelskaas meeshiisa ay ugu sii joogaan loading phase-ka necessary ma ahan kaliya waxaa la isticmaalaa marka aad rabtid quick result inaad aragtid isla markii yani creatine levelska jirkaaga inay hore ka buuxsamaan marka aad rabtid ayaa waxaa la isticmaalaa loading phase haddaba haddii aadan loading phase adoo sameynin haddana waxaa isticmaali kartaa caadi in aad daily qaadatid 3 to 5 grams inaad maalin walba qaadatid taasna yani waqtiga oo jirkaaga creatine-ka uu ku buuxsamaya kaliya ayaa dheeraan doonta maybe a month ay qaadan doontaa laakiin the same result ay arki doontaa natiijo la mid ah ay arki doontaa kadib markay murqahaaga creatine levelskooda u buuxsamaan then same result ay arki doontaa haddaba waxaa dhici karta marka qaarkiin qofka inuu creatine isticmaalo haddaba uu wax natiijo arki waayo how is that possible anagoo ka hadalnay
sidee macquul ka tahay anagoo ka hadalnay maxaa la dhahay creatineka waxaasay qabataa faa'iidooyinkaas dhan ay leedahay anagoo ka hadalnay haddana qaarkiin inay natiijo arki waayaan say ku dhacaysaa waxay ku dhacaysaa waxaa jira wax loo yaqaano responders iyo non responders. dadka qaar jirkooda creatineka wuu ka falceliyaa oo wuu muujiyaa natiija, dadka qaarna non responders waaye. creatin walba ay isticmaalaan jirkoodu ma muujinayo, yacni creatinkaas qofkaas muscle cellskiisa iyo fullnesski waxyaabihii dhan ma dareemi doono. So non responder haddaa tahay there is nothing you can do about it. sidoo kale waxaa muhiim ah, okay, creatin waa ka hadalnay faa'iidooyinkaas dhan waxaasay leedahay, laakiin mar walba baseka muxuu noqonayaa diet and training. haddii cuntadaadii eber tahay creatin keligiis waxa kuuma taraya because it's a supplement. So we know supplement waxaa la dhahaa dheeraad, yani it's like 5% extra waaye, ma ahan aasaaskii maaha. So mar walba muhiimaddu waxay noqon doontaa inaad dietkaaga isku dheelitirtid, inaad maaragtay trainingkaaga maaragtay oo on point yahay, then creatine, protein powders, all those things kadib yes like little extra xoogaa ay ku siin doonaan. marka guys waxaan rajaynayaa inaa maaragtay creatine waxyaaba badan ay ka fahanteen yani videogan shaqooyinkaas u qabtaa creatineka. marka side effectskiisa maxaa kamid ah, yani side effects badan laguma sheego, yani stadiyada qaara waxay sheegayaan boldness inuu keeno, macnaha bidaar iyo waxaas uu keeno, haddana ayagan laftirkooda maaragtay literature badan lagama hayo oo wax saas oo cad ma ahan. So mostly creatineka waa safe, waa the most research supplement oo isticmaali kartid. So marka haddii aad bir qaadaysid oo train garaynayso wax kugu talan lahaa creatine inaad supplementyada ku dartid. Okay guys, waa inoo video kale, peace out, bye bye.